الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وحين بإذن الله سبحانه وتعالى سيدو كبحي إعلانك محاضرة وها سامينتا أي كل هذا هي دعاء والدك وأبدك. runtii waa muxaadaro aada u qiimo badan, aada u wanaagsan, laakiin haddana aada moodo waxa weeyaan in hal majlis iyo laba toona aan lagaga bixi karin. laakiin khulaasada iyo nuxurka waxa weeyaan mawduuca bayn insha allah taaban doonaa, iyo bal sida ducada waalidku ubadka ay saameyn ugu leedahay adduun iyo aakhiro labadaba. inay ubadku inoo hagaagaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo islaaxiyo, waxaan odhan karnaa waa hididiilada uu leeyahay aabba kasta amba hooyo kasta ay leedahay. yacni waa rabitaan aynu wada leenahay wey in ubadku inoo hagaagaan, habla iyo inamaba. sida ogeedba waxa weeyaan in ay innaga inaga soo goodo, rabitaankaasu inaga soo go-o oo ah ubadku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo islaaxiyo lafteedu waa nimcad aada u weyn. subax kasta inuu waabariysano iyo galab kasta waxa weeyaan aynu galabaysano, waxaynu arkaynaa awlaadeenna. awlaadda marka ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey, haddii ay yihiin awlaad wanaagsan oo saalixiina, habla iyo inamaba, oo ilaahay subxaana wa tacaala ku toosan dariiqiisa, ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaya oo ka cabsanaya, salaadaha oogaya iyo waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray hadday qaan gaadheen, diintooda ilaashanaya, akhlaaqda wanaagsan ee islaamku inagu dhiirigeliyay uu la yimidna dhaqan ka dhiganaya, waynu jeclaanaynaa awlaaddii. walidaalikaba awlaaddaasi ay noqonayaan kuwo inaguna jecelnahay, iyaguna ina jecel. waa awlaad bay noqonayaan mar kasta ku ixtiraamto, ku qadarisa. walidaalika waxaa la isku waafaqsan yahay meesha keliya ama masalka keliya ee waalidku kaga heli karo ubadkii inuu ubadku u noqdo waalidka mid baari ah, mid baari u ah, waa tarbiyada islaamka wey. haddii markaa lagu tarbiyadeyn ilmihii qiyamka wanaagsan ee islaamku leeyahay iyo tarbiyada fiican, cagsigay isku bedelaysa. oo ubadki ilaahi subxaana wa tacaala waa adduunka inagu siiyey ee quratul cayn ahaa, inay cagsiga isku bedesho niqmo bay nagu noqdaan iyo musiibo way dhici karta. ilmaha wanaagsan amba saalixa ah ee waalidku ku hagaajiyey adduunka inta uu joogay, waxay culimmadu leeyihiin yacni waa khayr iyo wanaag waalidkaasi uu keydsaday dhimashadiisa dabadeed. oo awlaadda aad dhashaa haddii aada hagaajisay, islaaxisay adduunka intaad kaga tagta aada joogtay, dee berri markaad dhimato acmaal saalixay kuu samayn doonaan, way kuu soo ducayn doonaan. ducadaasi markay qabrigay kugu iman doonto, akoonkaaga aakhire ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kugu kordhin doonaan. camal kastoo ay sameeyaanna waxaa laga yaaba inay kuu cumraysaan oo ay xaj kuu tagaan oo khayraad fara badan ay kuu sameeyaan. imisaa jiro aabbo amba hooyo laga yaabo inaan la aqoon, laakiin waxaa soo caanbixiyey uu yahay ilmahooga. imisaa jira dad waxa weeyaan dhintay oo dhici karto berri waxa weeye khayrkooga iyo wanaagooga in laga sheekeeyo, sababna ay u tahay awlaadda ay adduunka kaga tagay. awlaadda aad hagaajisay aakhiro markaynu tagno, ilaahi subxaana wa tacaala qasriyo sababtooda ayuu inoogu dhisaya. marka waxaasoo wanaaga iyo waxaasoo khayra waxay ka dhasheen waa ilmihii aada hagaajisay. ilaahina subxaana wa tacaala uu ka dhigay adiga keliga maahe mid xataa uu ku intifaaciyo oo nafcigiisu uu soo gaadho ummadda inteeda kale.